dowladda hoosena naga dhaafsama mooye maba aragno waana la sheega mana aragno maalinba maalinta ka dambaysa waxaa cirka isku sii shareeraysa biyo la'aanta iyo cunto la'aanta baasan ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag kadib markii ay sixir sare gaadheen biyihii la cabbi jiray oo ay halka foosto kor u dhaaftay 50,000 oo shilinka Soomaaliland iyadoo ay dhanka kalena dadkan barakacayaasha ay ku tiirsanaayeen kaalmooyin kala duwan ay ka heli jireen hay'adaha ka howlgala Soomaaliland kuwaasi oo muddo dheer la leeyahay iminka waxay sidoo kale cabatin ka sheegteen kan dhibaataysan maamulka degmada Garadag oo ay sheegeen inaanay ka soo ag wareegin xaafadaha ay ka degan yihiin degmadaasi xaalkaas ka fadhidaanahay iska xuryaanka inay laba hadasho inay ma timaado ila ma arko dowladda hoosena naga dhaafsama mooye maba aragno waana la sheega mana aragno waa u baahannahay biyo iyo baadba waa u baahannahay biyo iyo baadba waa u baahannahay وانا aad baan u jilcsanahay ilaahay loo jilcsani waxaan u baahanahay ina wax kasta aan soo gaarsiisan dowladda hoose nooma iman halkan cidba nooma soo marto ama maamulka dowladda waxba naga mooga nooma soo maraan wayna ka dhuuntaan mar bay iskaga dhuuntaan waxaan u baahanahay in wax nala siiyo hay'adana ma qodnin ayaa dhaweyd baan dadka isu xidhaween tabadeena biyo la'aan iyo raad iyo waxaas wax ka jira weel ma lihiin heer ayaan dhaweyd soo galay baadno ayaan dhaweyd soo galo tabadeena xoolina naga bixin maay dowladdu nama timaado dowladdu xaggaasay naga dhaaftaa kala jirka iyo meesha xaafadaha ma soo gasho xanuun iyo baahi iyo dayac dadku inta uu qabo wixii nala ka caawin karo biyo baad caafimaad mid walba u baahan deegaanka la soo gaaro hadii hay'adaha caalamka ay wax degdeg ah siinayaan isku soo wada duuba waxaa si weyn dadkan barakacayaasha ee ku dhaqan degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag deeqo kala duwan u siin jirtay hay'adda marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan WFP taasi oo deeqo ay bishan iminka dhamaadka ugu talagashay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmada Garadag iyo deegaanada hoos yimaada ay loolan adag geliyeen jeebleeda bakhaarlayaasha ee degmooyinka Garadag iyo Ceelaf Weyne kuwaasi oo tartan adag ugu jira sidii midba midka kale uga tuuri lahaa karkaarka ومحمد قنبري تلفزيون كعالمي بولشة TV دق مذا قرضق